xilkan ku simanimo waxil weyn waxil ballaaran waa guul haweenka u soo hooyatay baan oran karaa Soomaaliland gaar ahaan haweenka xisbiga wadani milka maxamed cilmi waxa ay ka hadashay sababta keentay in ay noqoto kusimaha gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee wadani iyadoo ay jiraan gudoomiyaal ku xigeenna kale oo iyada la doortay sida xaqiiqadu tahay xisbigan waa xisbi aad u tixgeliya horumarka haweenka marka sababta ii suurta gelisay waa haweennimada aan haweenahay tixgelin buuranna uu xisbigu u hayo isla marhaanta iyagoo sharcibnoodoo kale ragiba ay jiraan ayaa aniga mudnaanta koowaad la siiyay inaan noqdo kusimaha gudoomiyaha xisbiga sida xaqiiqadu tahay doorashadii hore ee 2017 dhacday waxa uu ahaa xisbigani xisbi wali da'yar oo muddo 4 sano ilaa 5 sano ku dhawaad jiray marka iyadoo taa uu 40% keenay maantana waxaan filayaa oo maanta uu yahay xisbi mashhuura xisbi dhameystiran xisbi waqti dheer soo jiray 100% waan ku kalsoonay ta ilaahayna waa halkeeda ilaahayna waanu tala saaran kulay sida xaqiiqadu tahay madaxweynuhu soo jeediyay eedo laakiin waxaan qabaa eeda aan qabanayn musharaxa madaxweyne inaanay waxba ka dhibaynin siyaasadana kulay su'aal iyo jawaab meel waliba way taala madaxweynuhuna hadii uu eedeeyay waxa qurux badnayd inuu u ogolaado in eeda xisbigu iska difaaco musharaxa madaxweyne eedeeyay laakiin waxa nasiib darro noqotay oo wax la yaabo noqotay inuu labadii xisbi mucaarid baydi kama hadli karaan goobta iyada ah marka qofka bilaadanka hadii la eedeeyo ADC waa inuu jawaab ka bixiyaa marka iyada cid kala saaraysa waa shacabka Soomaaliland laakiin taas suurtagalba ma noqon inuu siiyo inay eedi xisbiga wadani iyo musharaxii madaxweyne uu soo jeediyay inay ka jawaabaan ama ambiil ka qaataan